الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله مني وإياكم منها ولا ليال إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى هدون نوغلاده waxaan wax ka sheegi doonaa khaladaadka laga galo tarbiyada ilmaha tarbiyada haddii laga bixiyo qeexitaan iyo tacriifka waxa loo yaqaano waxa la yiraahdaa waa siyaaqa mutakaamila ama barbaarin dhammaystiran laga bilaabo ilmuhu marka uu dhasho ilaa qofka bini aadamka uu ka dhimanayo intaas oo dhan wuxuu u baahan yahay barbaarin dhammaystiran oo waafaqsan calaa sharci illaahi sharciga ilaahayna lagu barbaariyo khaladaadka laga galo ilmaha tarbiyadooda waxaan u qaybinaynaa laba qaybood qaybta hore waa qayb ku saabsan intiiba ilmuhu uusan imanin khaladka laga galaayo qaybna waa ilmuhu markuu dhasho khaladka laga galaayo qaladka koowaad oo ilmaha laga galo waxaa ka mid ah raadinta iyo ikhtiyaarka hooyada marka la doonaayo ikhtiyaarka lagu doorto ayaa ka mid ah khaladka koowaad hadduu khaldamo rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiis saxiixa ayaa rasuulku wuxuu ku leeyahay nutaftiinna iyo meesha aad wax dhigaysaan oo guurkiinna iyo ilmihiinna aad ka rabtaan ku dadaala oo hagaajiya mar kale rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu noo sheegay ikhtiyaarka lagu doorto ee dumarka afar qaybood baa lagu doortaa qayb waxaa weeye in lagu doorto gabadha iyo maal iyo xoolo inay haysato qaybna waa gabadha nasabkeeda iyo qoys ahaan in loo raaco qaybna waa quruxda gabadha in loo doorto qaybta afraadna waa diinta gabadheeda in lagu raaco rasuulku wuxuu yidhi fadfir bidaati diin taribad yadaaka gabadha diin ha lagu raaco haddii aadan diin ku raacinna ducada rasuulka wuu garab mariyey rasuulku sala allahu calayhi waaalihi wasalam sidaas darteed dadku markay raadinayaan ikhtiyaarka gabadha lagu raadinayo haddii uu noqdo mid waxyaabo kale aad ku raadisay iyo maanta adduunka markaan joogno waxyaabaha wax lagu doorto gabadhu ee jaamacadday ka baxday iyo maxay ka shaqaysaa iyo shaqadeedu maxay tahay quruxdeedu waa sidee sidaas keliya hadday kugu xiranto maadaad baad ku xirantay ilmahaagiina khalad baad ka gashay marka ilmaha qaladka koowaad laga galo waa hooyada inaan loo dayn diin ma leedahay waa in diinta loo fiiriyo sida saxdiina waa in diinteeda la fiiriyo weeyaan qaladka labaad oo ilmaha aan ka gallo waxaa ka mid a mucaashara zawjiya waxa la yidhaahdo ama dhaqanka qoyska markii labada ruux ay isu yimaadaan oo guriga la isugu yimaado in sunnada rasuulka la raaco sala allahu calayhi waaalihi wasalam sunnadaa rasuulkaa noo sheegay wuxuu yidhi rasuulku labada ruux markay kulmayaan ee labada qoyska ay isu imaanayaan kulanka ay qoysku ku kulmaan sariirta haddii uu yidhaahdo ninku bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaan wa jannibi shaytaana maa rasaqtana intaa hadduu aqriyo bismi illaah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله يو نجفوجي الشيطانك أنك نجفوجي الله بدر الروح هوشا قبنا يسر ربي وكفوجي
ilmaha aad nagu arsaaqadoodna siisana ka foge rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam haddii alla uu ugu talagalay habeenkaa ilmo inuu caloosha hooyada galo shaydaan dhibi maayo ilmaha weligii diintiisuna dhibaynin weligii qofkaasi diin ahaan wuu ka badbaadayaa shaydaan waxaa la yidhaahdo walaalayaal haddaan ducadaa la akhrinin oo labada ruux ee waalidkii markay kulmayaan ducadaas ay halmaamaan ama iska dhaafaan oyna danaynin inay bartaanna ayna ku talagelin iyagana shaydaan baa shaqada la wada ilmaha meeshaa ka dhashayna shaydaan baa ku lug leh ugu yaraan shaydaan baa ku shaqo leh walidaalika baa waxaan tusaale u soo qaadnaa ilmaha yaryar ee maanta ad aragteene ee la qaban la'yahaye dhibaatada badan ee islaamkii lagu kari la'yahay yaa waxaan nidhahnaa waa ilmo qayb ka mida shaydaan ay tahayba maxaa jira hawsha odayaasha odayga iyo odayaddu markay bilaabayeen buu la soo bilaabay cunugiibuuna si gaara shaydaankii usii raacay waa qaladka labaad oo laga galo waalidka maxaa lagula talinayaa ducada ayaan la halmaamin waxaa weeye bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wajanib الshayطaana maa rasaqtana qaladka kaloo ilmaha laga galo waxaa weeye inaan sunnada saxda alla raacin ilmuhu markay dhashaan dad badan oo ka mida ummadda markay ilmo u dhashaan qaabka ay u soo dhoweeyaan waxaad arki xaflad ilmuhu markuu caawa dhashay xafladaa la dhigi waddamadan aan nimid iyo qaabka ilmuhu markuu dhasho ay u qaabilaan bay u qaabilayaan sidaasina sax ma aha sunnadu waxay naga amartay waxaa weeye ilmuhu markuu dhasho in taxniig loo sameeyo oo timir iyo wax macaan afka loo marmariyo in dhegta midig looga aadaamo maalinta toddobaad in loo sameeyo wanqalka wixii la odhan jiray in magac fiican loo bixiyo waxyaabahaasna waa waxyaabaha sunnada ah loogu talagalay haddii aan garab marno tusaale hal xaboo ka mida haddaan ka soo qaadano rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam mawluudku marhuun wuxuu ku yahay bicaqiiqatihi ilmaha la dhalayo wanaaggiisa iyo inuu yahay qofkaas ilmo baari ah waxay ku xidhan tahay waxa loo sameeyo oo wanqalka loo yaqaano waxaa laga yaabaa aabbayaasha meesha fadhiya iyo hooyooyinka qayb badan oo ka mida intaasoo cunug inay leeyihiin weligoodna ilmo ay dhaleen wanqal inayna u samaynin walidaalika masaladaas waa sunno aad iyo aad u wanaagsan si uuna ilmuhu caaq nooga noqonin si uuna ilmuhu ilmo dhib badan nooga noqonin waa in wanqal loo sameeyo waa lagama maarmaan qaladka kale oo ilmaha laga galo waxaa ka mid a hooyadu inayna barbaarinin ilmuhu markuu kuu dhasho in la geeyo meelaha lagu hayo dhaykeerka iyo wixii la midka halkaa ilmaha lagu tuuro aabbuhu shaqo iska aado hooyaduna shaqo iska aado ilmihiina hooyo aan dhalin iyo dad aan loogu talagelin inay hayaan masaladaas walaalayaal masale yar ma aha oo fudud culimaau tarbiya waxay leeyihiin hooyadu markay ilmaha nuujinayso naaskaas ay siinayso waxa ay siinaysaa caano keliya ma aha wa inamaa turdicuh waxaa kalooy siinaysaa alcadfu waalxanaanu waalraxma ilmihii naxariis baa la siinayaa walidaalika tusaale haddaan soo qaadno qof walbo gadaal isugu laabo hooyadaa markaad dhabteeda ama ku fadhiisato ama hooyada ay beerka kugu qabato waxaad dareemaysaa ammaan waxaad dareemaysaa jacayl tiro badan waxaad dareemaysaa raxmad iyo naxariis marka hooyo naas inay ku siiso keliya macnuhu ma ahe jacayl baa ilmaha la siinaya hooyadu ay ku korinaysaa hooyo aan dhalin markaad ilmaha u geyso ma u malaynaysaa inuu ka helayo arrinta noocaas waa lagama maarmaan marka taasna haddii marka aan hooyadu ilmaha naaska ayna siinin qalad ayuu ilmihii ku korayaa qaybtaasina way ka maqan tahay waxaana wey allah subxaanahu wa tacaala naaska iyo dee fawaa'idda uu leeyahayna rabbi qur'aanku ku sheegay waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca waa in ay ilmaha aabbaha iyo hooyadu raalli hadday isaga noqdaan naaska loo daayo oo la nuujiyo ilaa 2 sano ilmuhu naaska inuu ku hayo way afka oo intaa haysto fawaa'idda ka imaanaysa iyo naasku muxuu faa'iido leeyahay hadda culimada dhakhaatiirtaa baan filayaa inay mar walba noo sheegaan ood ka maqasheen inuu faa'iido tiro badan leeyahay qof loo sheegay